kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah sheekooyinkeena imtixaanaha inoo ahaa oo aad kala socon jirteen boggeyna YouTube-ka iyo sidoo kale boggeyna Facebook. Sheekadeena maanta ciwaankeedu waa walaalkay ha joogo. Dad meel deganaaba beri waxyaab la kulmay. Waxay kala kulmeen ceelkii biyaha ay ka dhaansan jireen. Wadaan kasta oo ay ku ridaan kama soo noqoto waxa go'a dawligiisa wadaanta. Dawliska wadaanta ku xiran. Waxa la maleeyay in waxa dawliska jaraya ceelka ay ku jiraan. Dadkii ayaa yiri yaa ceelka galaya oo hubinaya waxa ku jira. Dadkii ayaa yiri yaa ceelka galaya oo hubinaya waxa ku jira oo inagu aynu war ka hayn. Wiil ayaa yiri aniga ayaa galaya hase ahaatee dadka xariga haynaya. Hase ahaatee dadka xariga haynaya waa in uu walaalkay ku jiro. Walaalkii ayaa laga doonay meel kale. Waanu yimid wiilkii oo xariga lagu xiray ayaa ceelkii ku dhacay. Wuxuuna arkay daanyeer madow oo gunta ceel ka fadhiya. Kolkii xarigii laga soo dajiyay ama laga soo jiiday ayaa la arkay wiilkii iyo bahal madow oo xariga wada haysta. Dadkii oo dhami way naxeen oo dabadeedna way yaaceen. Wiilkii walaalkii oo qura ayaa xijiyay ilaa iyo wiilkii iyo daanyeerkiiba dibadda u soo baxaan. Wiilkii ayaa yiri waxaan joogitaanka walaalkay u doortay isagu igama tagayo xilliga adag hase ahaatee dadka kale sidaas iminka dhacday ay iga yaaci lahaayeen ayuu yiri wiilkii. Sheekadan oo ah mid ka mid ah sheekooyinka Soomaalida inii hore ay ku maasan jireen ayaa ah mid xambaarsan xikmad saaxiibayaal ka faa'iideysta muuqaalkan ay noo share gareeyay mahadsanidin.